الحديث الخامس عشر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. الحديث الخامس عشر. حديث كطبعا يشنية عن أبي هريرة وحي كوريا بخاري مسلم رضي الله عنه عن رسول الله رسولك إلهي كوري صلى الله عليه وسلم قال رسولك يري: من قفك كان أهابي يؤمن مثل ما يسم بالله الله إيا واليوم الآخر مالك الضنب فليقول هكوهات له خيرا وناك أو ليصمد هديك لها إسكام الصو. ومن كان قفك هذا يؤمن مثل ما يسم بالله الله إيا واليوم الآخر مالك الضنب فليكرم هكرام يجاره درسكيسة. ومن كان قفك هذا يؤمن مثل ما يسم بالله الله إيا واليوم الآخر مالك الضنب فليكرم هكرام يضيف ومرتقيسة. رواه البخاري ومسلم. حديث كان إمام البخاري يا مسلم يا وريين والنبي صلى الله عليه وسلم نوغو شيغاي صدح فقرات مهمه oo aadaabta qofka muslimka laga doonayo kamid ah. saddexdaas arrimood tan ugu horeyda waxay tahay qofka ilaah iyo qiyaamada rumaysan hadalka uu ku hadlaa haduu qayr yahayna waa inuu ku hadlo hadii kalena ka aamus. marka waxay ku tusaydaa iimaanku waa qofka waxa ka celiya xumaanta. dan qofku iimaan lahayn xumaanta kama joogayo. saas darteeda hadalka xun yaa ka joogaya qofka iimaan leh oo rumaysan bari ilaahay hortiisa in lagu soo taagi doono oo lagu weydii doono arintan. qofka rumaysan allah ya qiyaame ayaa waxa weyn ilaahay u hogaansama ahkaamtiisa xuduudda allana ilaaliya. ka iimaanku waa shayga qofka xumaanta ka celiya. iimaankiisu markastuu xoog yeesho iimaankiisu xumaanta waa ka jooga. markastoo iimaankiisu daciifana xumaantu ku dhaca qof ama uu iimaanku baaba'o. من قفك كان هذا يؤمن مثل ما يسم بالله الله إيا واليوم الآخر مالك الضنب فليقل هكوها طلو خيرا خير أو ليصمت أمها أمس. سأسترت إذا وحا باطلة ونحقا إن هرانا ونسو أغاني قفكو إنو انتحمان تسكسم أيو أو يراهدو التقوى ها هنا. أنا قال الله كعبسال كانوا يقبلوها الله كعبسال قلبك كبوحو حمانتو كرهبي له حمانتو وكرهبا إيمانكو قفك وحا وين حمانتا وكرهبا إيمانكو shayga xun waa ka reeba qofka waa ka reeba. marka halkaas waxaan ka ogaanay hadalka qofku uu ku hadlaa hadduu khayr yahay waa ma'muur waa ku hadli kara. khayrka saddexa soo galayda inuu yahay hadal khayr adduun iyo khayr aakhiraba ku jiro. adduunkana wanaagaad ka heli aakhirana ajraad ka heli kaas waa ma'muur. iyo inuu yahay hadal آخرة هذا خير أدونك يسمى مصلحة كوجرين ومأمور والله يسأم رأي ومأمور. يقولوا ياهي خير أدون دم أدون ومصلحة أدون تقصوا حسشانين لكن وح آخرة كوجرت أجرة لكن آخرة هذا نقول بما وور آخرة هذا وحبا قدمي وحوين مصلحة أدون أتكو جاري وحوا كاغتي كاما غدان واكوسيي وحوي وح آخرة هذين أو وحبا كدبين الدنيا أتكو جاريدو وأكو فسحين خلاص محا سو هراي صدخداس waxaan ahayn waxa lagu amray inaad ka aamusto. laba shay ayaa soo galay wixii diintaada dhibayo ama xaraan ama selamid iyo shayga iska mubaax ah oo wax faa'iido horeeysa ku jiro warbadida hadalka iska dheeraadka ah. saastarteeda ma jiro hadal inaad ku hadasho
iyo inaad ka aamusto ay isku mid tahay ma jiro fiir hayelay hadduu khayr yahay waa inaad ku hadashaa maamuur weey hadduusan khayr ahayna waxaa lagu amray inaad ka joogto marba hadduusan khayr ahayn khayr hadduu yahay inaad ku hadashaa lagu amro fiican hadduusan khayr ahayna waxaa lagu amray inaad ka aamusto ma jiro hadal isku mid ah inaad ku hadasho inaad iska daydo sidaas darteeda imaamu nawowi raximahullah sharaxa uu kitaabka saaray 40ka wuxuu yidhi qaala shaaficiyu raximahullah imaamu shaafici wuxuu yidhi allah u naxariistee xadiidka macnaheeda waxay tahay xadiidka macnihiisu waxa weeye markuu qofku rabo inuu hadlo falyufakir intuusan hadlin ha fakero kelimad kasta markay kaa soo baxay intaysan soo bixin fakar markaad fakerto fain dahara annahu laa darara calayhi takallama tay u muuqato hadalkan wax dhibaata inuusan lahayn aakhiradiisa dhibi maa waa ku hadla wain dahara ana fiihi dararan aw shaka fiihi amsaka hadduu ogaado hadalkaanu hadal dhib leh inuu yahay amase dhib ma laha laakiin uusan dhibkiisa hubin laakiin ka shakiyo dhib maleeya mase ma laha waa inuu ka aamusa khalaas maxaa yeelata assalaamatu laa yaxdiruhaa shay inaad nabad gasho diintaadu kuu nabad gasho wax la miduhu ma jiraan hadalka u fiirso taad hubto inuu nacfi leeyahay ku hadal khayrkaasuna saddexdaas khayr u qaybsanayaan sheegnay khayr adduun iyo aakhiro khayr aakhiro iyo khayr adduun oo aakhiro wax ka dhibay saddexda waa ku hadal iyo mid aad hubto inuu darar baleeyahay iskaga aamus midad ku shakido sir hadalkaan ma banaaya ma banaana asna ka joog خلاص sidaas weey imam Nawawi وقال الإمام الجليل أبو محمد ابن أبي زيد إمام المالكية وحويان وابن أبي زيد القيرواني وغيري جميع آداب الخير تتفرع من 4 أحاديث خير كورتان آداب تيسة أفر حديثة أي كفر عنتا أفر حديثة أي كفر عنتا ضمان وحويان الله وحا خير آداب تيسة أفرتاس حديث مدوامد كان من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت إلى آخر حديثك كان واقعا صامرني من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه كان كلنا وحديث ما صعده لا تغضب هعروني كان كلنا وحديثك النبي صلى الله عليه وسلم ونصنا صامرنا شلي لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أفرتاس حديث الضاد انت حفظه مركز ay kugu soo dhacsayeen oo ku dhaqanto khayr aadaabtis asal waa haysata waxa la rabaa laakiin inaad maskaxdaada ku soo xaadirdo oo isa maskaxdaada ka bixin afartaas waxa weeyaan aadaabta khayr oo dhan afartaas ay ka farcan tahay wuxuu kala ka soo naqliyay yiri Abil Qasim al-Qushayri as-sukut fi waqti wasf ar-rijal waqtiga ku habboon qofku in aamuso uu iska daldalmin waa tilmaanta ragga loola jeedo wax uu qorale waxa loola jeedo dad qiimaha leh dadka qiimaha leh rag iyo dumar waxay rabaan ha aadeen sifada ay leeyihiin waxay tahay hadalka aamusku waqtiga uu ku habboon yahay inaad ka aamusto sidaas oo kale waqtiga hadalku ku habboon yahay inaad hadasho sidaas way sifatu rijaal wuxuu yiri waxaan maqlay Abu Ali ad-Daqqaq asagoo leh man sakata 'an al-haq fa huwa shaytaan akhras qofka xaqa ka aamusa meeshan xaq in laga sheega manaasib u yahay waana yaqaan xaqi asagi waa aamusa xoga dadka kugu kacaya xoga ganacsigaaga wax u dhibay sumcadaada xoga siyaasadaada wax u dhibay wax masaalixdiisa ayuu la aamusay masaalixdiisa adduun la aamusay wa og yahay meeshan xaqaas in laga sheega in manaasib tahay وشيطان عرب لا كاسوكل العلم وحي يراهدانو كليتو ومن تكلم بالباطل قفك باطل كو هدلانا وشيطان ناطق كان باطل كو هدلا وشيطان ناطق كان waxa weeye xaqa ka aamusana waa shaytaan afwaq marka maxay tahay rijaalnimadu xaqa meesha ku munaasibka markuu joogo hadal marka kala dadku iska durqubaanayaan iska aamus shibska hadalka la wada haduusan wax qiimo lahayn baadil hadda isaga waa markad ka hadlayeen aamusaad waxa la baadilka joojiye laakiin hadal aan wax faa'iido ku jirin oo adduunyada lagu soo xasileen aakhirada lagu gaalayna la iska wada rag waa marka markaas kale ka aamusan shib iska ninkaasanin hayla waa nin diintiisa ku baqiilay
waa nin diintiisa qiimo ay la leedahay ku baqiilaydo sidaas darteeda waxa weeyaan waxay yiraahdeen ahl cilmiga imaam Nawawi waa sii wada hadalkii wuxuu yiri xilyatul awliya waxa ku sugan insaanka waxa haboon hadalkiisa inuusan soo saarin ilaa shay u baahan inuu ku hadlo maahan oo ama maslaxad adduun ku soo xasilinayo ama maslaxad aakhir wax kale weyn uusan ku hadalka inaad ku baqiisha sida maalkiisa qofku uusan u bixinayn ilaa wuxuu u baahan yahay maslaxad adduun ama maslaxad aakhir oo ku soo xasilinayo maahan waa in hadalku saas oo kale aad ugu xisaabtanto sida aad ugu xisaabtanto waxa weyn dhaqaalahaaga iyo maalkaaga markaas wuxuu yiri ilaa uu yiri hadii dadka warqadaha warka lagu qorayo la yiraahdo gada sida dadka diintooda aysan u ilaalin adduunyada si ay u ilaaliyaan dii la yiraahdo dad waxa la ka rabaa warqadaha malaa'iktu ku qoraydo hadalkiina waa inaad soo gadaan ay hadalka u ilaasho lahayd wadila warqadiya buuxsameeyde warqadiya igu buuxsami hada waa warqadiya dii la warqada la soo gado waa laga qoraa laakiin hadda malaa'iktu kama gado dadku uma dhiibaan warqadaha yaa ay wax ku qoray ilaahay yaqaan meel ay ka keenaan saydarteed iska durqubaan oo iska daldalma oo san waxa weyn hadalkiisu miisaan u lahayn marka hadalka qofka muuminka waa inuu aad hadalkiisa u ilaaliyo oo uusan waxa weeyaan iska hadlin sababtoo ah nabigeena subhanahu sallallahu alayhi wasallam waxa ka sugan xadiiska Bukhari iyo Muslim wariyeen min xadiis Abu Hurayra inuu yiri inna ar-rajula la yatakallamu bil kalimati ma yatabayanu fiha يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب قفك واحد يكرت كلمة إنه كهضله أو صنع عطيسا كلمات دان مطلبها كجرة مسوونات أو كلمات دان سببت النار تقوه أبطو وحكفه عن شبادان قرح ماشي كصباح لي ماشي أولاد وهذه كلمة واحدة أو كفيصا كور بخاري مسلم أوريه ولذا سيتردد عمر بن الخطاب وهديجري رضي الله تعالى عنه من كثر كلامه كثر سقطه قفكي وحوين هذا الكيس بطه دعيسنا بدنا جفكيسا بدنا ومن كثر سقطه كثر ذنوبه قفك حتى دعيس بطنا ذنوبتيسا بدنا ومن كثر ذنوبه كانت النار اولى به قفك بدت ذنوبتيسنا نار او حقل نار او هبون او حقل marka waxa weey qofka muuminka waa inuu aad hadalkiisa u xisaabiyo waana noo imaad doona waxa dhan oo dadka naarta waji loogu tuuro waa arab marka qof kasta inuu isku dayo inuu arabkiisa ka adkaado oo aad noqoto dadka balkan ugu wariya waa muhiim waman kaana qofki ahaaday yu'minu mitrumaysan billahi allah iyo wal yawmil aakhir maalinka qiyaamaha dambe falyukrimha karameeyo jaarahu dariskiis fikrada labaad waxay tahay nabigeena suuban sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri qofka ilaahay iyo qiyaamada rumaysan dariskiisa ha karaameeyo dariska in la karaameeyo waa la is-amray karaameyntaasna saddex shay ayaa ku soo koobayda oo khulaas ahaan waa saddex shay koow dhibkaaga inaad ka celido waa shayga ugu muhiimsan dhibkaaga inaad ka celido dadka aad dariska kula ah waa inaad dhibaatadaada ka celido imaam Nawawi rahimahullah oo yiri dariska marka jaar la yiraahdo wuxuu ku dhacaa afar shay qofka guriga kula degan waa la yiraahdaa qofka guriga kula degan walidaa saas daradeeda quraanka waxa weeyaan wasaahibi bil jambi ilaahi qowlkiisa ah ahli cilmiga gabala ku fasireen waa zawjadaada wasaahibi wal jari junubi wasaahibi bil jambi wal jari junubi wasaahibi bil jambi marka qofka guriga kula degan daris waa la yiraahdaa waxa kale la yiraahdaa qofka gurigiisu kugu dhagan yahayna waa la yiraahdaa waa ila afartan guri uu yiri ila afartan guri waxa kale la yiraahdaa qofka beledka degantahay degan oo magaalada kula degan isna daris la yiraahdaa thumma la yujawirunaka fiha illa qalilan ayada suratu waxa weeyaan ahzab ayuu u daliishaday marka daris qofka waxa weeyaan guriga kula degan waa la yiraahdaa kan gurigiisu kugu dhagan yahayna waa la yiraahdaa kan afartan guri oo dhinac kasta ka xigtana waa la yiraahdaa midka beledkaaga deganna waa la yiraahdaa dariska marka saddex ayuu u qaybiyay hal cilmiguna sidaas ay u qaybiyaan imaam Nawawi wuxuu dariskii saddex weeye waa kuwa daris
ama gurigii kula dhagan yahay ama waa kugu dhagan yahay ama afartan guriyuba ku jiraaba daris waa kulay waana muslim qaraabana waatiin saddex xaq uu kugu leeyahay xaqul qaraaba xaqul jaar iyo xaqul muslim xaqul muslim ala muslim illa jiri marka saddex xaq uu kugu yeelana xaqul qaraaba xaqul jaar xaqul muslim saddex uu kugu leeyahay marka kan labaadna waxa weeyaan waa qof daris kula ah muslimna laakiin aan qaraabanimo ka dhaxayn laba xaq uu leeyahay xaqul jaar wa xaqul muslim kan saddexaadna waa gaal daris kula ah qaraabada aad ma ahayn la gaalada gabadha daris kula noqon kara hal xaq uu ku leeyahay waa xaqul jaar darisnimada xaqeedi marka saddex karaamada aad karaamaynaydaasan saddex shay noqonaysa saddex shay shayga ugu muhiimsan waa inaad dhibkaaga ka celido waa inaan dhibaatadaadu dariskaaga gaarin nabigeena subhanahu sallallahu alayhi wasallam xadiis imaam al-bukhari sahihiisa ku wari wuxuu yiri wallahi la yu'min ilaahan ku dhaartay inuu san muumin ahayn yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam wallahi la yu'min saddex goor nabigu ku celiyo sallallahu alayhi wasallam wala weydiiyay qiila man ya rasuulallah rasuulka allah yaa waayo qofka aad ku dhaaratay saddex goor inuu san muumin ahayn qaala nabigu wuxuu yiri man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu waa qofka dariskiisu uusan aamin ka ahayn dhibaatooyinkiisa darisku aamin ma waa ka cabsanaya goorma caruurtiisa inuu turiyay doonaan goormay caruurta inay ka dili doonaan goormay qiiqa inuu ku shidi doonaan goormay muustiqa inuu ku shidi doonaan goormay inuu ku buuqi doonaan waxa weeyaan waa ka cabsanaya mar haddaan dariskaagu aamin ka ahayn ilaahay maada rumayn iimaankii waajibka ah oo laga rabay laga maheli iimaan waajib had ka tag taas marka waxay tusaydaa dariska dhibka la dhibaa ama uu dariskaagu cabsadaa inay xaaraan tahay oo kabiira ah hayla iimaankiiba laga afiyay qofka ka ilaahay in qof walba uga cabsado dariskiisa imaam ahmed ibn hanbal rahimahullah wuxuu yiri qofka xalaal uma ahan milkiga asagu iska leeyahay inuu ku tasarruf uu ku dhibtoonayo darisku fiir milkiga ada iska le guriga dhexdiisa degan intifaaca aad ku nacfaydo hadii darisku ku dhibtoonayaan waa xaraan oo waa maxay sidee gurigaaga laftigiisa ba mesela qiiq ka shide dadkii oo soo jeed waa guriga dhexdiisa ogow qiiqiyo ku dhibtoonayaan xaraan waa gurigaaga dhexdiisa gurigiisa maalan tagin gurigaaga iyo muusiqi hees ka shide iyo kaban iyo balaayo dariskii kugu dhagay waa dhibto iska daa muusiqi hees quraanad shide microphone aad ku shide dariskii ma hurdi karo aruur ma seexa karo kii jirana ma seexa karo waa dhibaato waan xaraan zaalimat oo quraanku ma dhibaa in la isma qashiya ha nabiga sheegay sallallahu alayhi wasallam mararka gabal in dhib noqon karo mararka gabal oo muxuu yiri nabigu sallallahu alayhi wasallam la yu'dhi ba'dukum ba'dan bil qira'a war gabalkiin gabalka kale quraanka afintiisa iyo ku dhib tu kaasi xaway amu ka tuka way gurigiisu ku tukan microphone ku shid fiiri microphone ku shid wala aragna macallimiinto dacwo oo le nin macallin ahaba yimi oo wani masaajid meeshaan aan dhibayo ka sii xaway maalinka jumcada xooga qayluushana salaada subax markuu dadka tujiyo uu inta canjilad galiyo gurigiisa ka aada microphone kaasa ku shidan waa ka quusana inaan seexan ka war yaa ka masuul dhamaan wixii muslimka dariskaaga dhibaya waa xaraan inaad ku dhibto inaad dhibtaa xaraan soo ma jeedin marka hadda muusiq iyo hees tahayna waa laba xaraamood oo muusiqana sidiisu xaraam u yahay dhageysiisu iyo heesta midka dariska ku dhibaydana waa xaraan kale quraanka laakiin isaga dhageysiisu waa xaq waa hanuun laakiin dariska ku dhibay hoos waa akhris dhageyso adiga isku koob dariska ku dhibay isaga dhageysiisu waa xaq dhamaan waas caruurta halad booy dariska haday dhibaato kaaga soo sheegaan halad booy hubso wax caruurtaada cisho laakiin inaad caruurta la booydo oo caruurkii booyay ma ugu yimaado adoo ordaayo burkaaga si timaado waa daalimnimo marka waa inaadan dhibin oo shayga ugu horeey dhibkaaga ka celido dariskaaga oo dariskaagu kugu dhibtoon hadii kale ilaahay maadan rumayn iimaanki waajibka kugu aha talabaad waa inaad ihsaan u sameeydo
إحسان أصمين وحقات أودو درس كاغونا أباهيين وإنات سيدو أطمع أبان كل بتوني معونتي يا كمت عذاب إلهي وقود دي ضدك معونت الديدة سوما جيدي ولو قودي marka waa inaad siido waxa aad awoodo waa inaad waxa aad awoodo oo adana ku dhibtoonay waxa kamida waxa aad awoodo oo ku dhibtoonay gurigiina isku dhaga wuxuu u baahnay darbigaaga inuu tiir ku muto qori xaq u leeyahay uma diidi karo mar hadan ka gurigaagu dhibaato soo gaaray wixii adiga aad dhibaato kaaga ku soo gaaray hadii asaga xaq uma nabigeena suuban sallallahu alayhi wasallam xadiiska bukhari muslim ay wariyeen min xadiis abi hurayra وحور لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره قفكين يؤدي لندرسك إنه قري كمته دربيس نبي محمد أيضا صلى الله بدك يحوغا قلق الله الذين أيو أركب هريرة مركز المالي أراكم معرضين محاد عيوحان أركب سنة إنه تكتشي سيداني والله لأرمين بها بين أكتافكم والله قربيهنا نكون طوريا دحدين ama dhibsada ama dhibsanin anu weynii sheega nabiga yiri hadiidinina marka shayga aad haydo oo nacfiga ah oo waxtarka ah oo adigi dib kuugu jirin hadaad bixido asagina u baahan yahay waa inaad siido saastarteeda dad badan waxa dhacayda inay waxa weeyaan raashinka inta karsadaan oo lay waayaan ay godka ku shubaan dariskuna gaajo u dhimanaa way dhacda taas marka ma darisnimo ma ahan darisnimo wixii marka uu u baahan yahay oo nacfi ah waa inaad gaarsido wixii ariba aadan ku dhibtoonin nabiguna waa cadeeyay sallallahu alayhi wasallam wax tarka la gaarsiyo daris hadiiska abi dar muslim sahihiisa ku wariyay nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri ida dabakhta maraqatan abi daro markaad karinaydo maraqa fa akthir ma'ahu biyaha ubadi maraqa biyaha ubadi thumma anzur ila ahli bayti jiranika كدب واحد في رضا درس كاغا قويس كميد فاصبهم منها بمعروف وحكا جارسي مرقاس جارسي كور ادنا غلط كشبه ايغيو بابا وضلال marka tan labaad waa midaas waa inaad ihsaan kaaga gaarsiido oo aad taageerto oo aad gacan qabato waxa aad dheer tahay ilaahay kugu nimceeyay ayagina ay u baahin adna aad ka noolaa karto waliba midda saddexaad oo ugu dambeeydo la rabo inaad ku karaamaydo waana muhiim waana tan ugu dhibka badan waxay tahay an tasbira ala adah inaad dhibkiisa u sabarto intaad sabri karto dhibkiisa inaad u sabarto wixii aan munkar ahayn de muusiqa duu kugu shido iska sabar ma ahan kaas haas waxa leedahay ilaahay ka cabsi iga dimi laakiin wixii kaleeto oo u sabri karto munkar ahayn waa inaad iskaga sabarto وأنا صبرت حسن البصري رحمه الله وغيري ليس حسن الجوار كف الأذى نبكى إنك كعلي ده ما هنو درس وناك أنت سكلي لكن درس وناك وامحي ولكن حسن الجوار احتمال الأذى إن نبكي سقط القاضي حيلا هدان لا يسكت نبكى لا يسكت سمينا هدان لا يسكت دول قاضي درس نبى تشريم إلا ما دعك كرت إتكون درس مرنا قفي ما دعك كرت مر أمضى وحكه معنا سما وإن صبر لهذا ودرس كان صبرته وعرورته كبرارجيدو ودهويده كبرارجيدو وابوه لو كبرارجيو ولينا ودرس كان ويجاركنا انو صبر انتاس markay timaado maxaa soo baxay dad isjecel isku naxariista dad fiiri qof dhibkiisa ka celina wanaagiisa ku gaarsiina kaaga u dul qaadana xumaana ka imaanaysa sidaas marka la noqdo markaas ay bulsho qiimo loo soo bixiyada bulsho qiimo nabi wuxuu sallallahu alayhi wasallam ومن كان قفك هذا يؤمن متر ميسن بالله الله إيا واليوم الآخر مالك الضنبه فليكرم حق كراميه ضيفه مرتقس حق كراميه فقرانا صدحات وحي الطهي نبي صلى الله عليه وسلم وحو أمهي مرتقى إلا كراميه مرتقى إلا كراميه كرامين تمرتقى آدابت إسلام كي كم الطهي أحاديث بدنا النبي وكو أمهي صلى الله عليه وسلم نبينا الصبان صلى الله عليه وسلم وغيري من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته حديث كلام قفك إلهي يا قيام الرميسان مرتقيسة هكو كراميه هبين نحمديسة هسيو قالوا وما جائزته مركز علي رسولك الله
وما هبين دحمدو قال يوم والليلة وهبين يا مالك مركز النبي يقول والضيافة 3 أيام مرتقاتك وصدح مالموت وما كان بعد ذلك فهو صدقه وحي كدن بيانا وصدقه حديث البخاري ومسلم وريه من حديث أبي شريح سيسترت هذا إمام أحمد ليث بن سعد يغير كتب وحي كتغين واجب إنay tahay habeen dhaxmada qofka martiga ay kugu soo hoyda waajib inay tahay habeen iyo maalin aad sooriyeen dad awoodo waxa dad awoodin lagu ma haysto laakiin waa awooda habeen iyo maalin ahlu ilmi kale waxay yiraahdaan maya saddexa waajiba saddex habeen iyo saddex maalmood maxay nabiga hadalkiisa fiiri sallallahu alayhi wasallam nabigu wuxuu yiri wa diyaafatu 3 ayyam martiqaadku waa saddex maalmood وما كان بعد ذلك فهو صدقه وحي انتاس كدنبيا وا صدقه انت هو وين كدوان او واجب تاي صدق اساس لا فهم وانا سيده بعض الحنابلة ay ku tageen marka waxa weeyaan waa in martiga aad siido suuriyadiis mehermiiga kaliya waajib ku tahay reer magaal iyo reer miiba imaam shaafici reer miiga magaal waajib ku tahay martiqaad laakiin imaam maalik wuxuu waa reer miiga wax martiqaad ku waajib ku yahay hayla magaal markuu qofku yimaado hotelkana waa saxa maqaayadana waa ka cuntayna laakiin mi hotelna male cuntana maqaayadna male markay reer miiga waajib ku tahay leey imaam maalik laakiin shaafici wuxuu leeyahay maya nabigu ma kala qaadin reer magaal reer miig qofkii ilaahay iyo qiyaamo rumaysan u lahad midda kale dad badan magaalada imaanaya oo hotel si xakri maqaayadna ka cuni kari ma jeeda saasarteeda qowlkaas umumka in la qaato imaam shaafici ayaa sawaab oo raajixan ula jeeda marka magaalo iyo miiba waa in martiga habeen dhaxmadiisa la siiyo karaamaynta sida quraanka nabiyullaahi ibraahim nooga waramay sida ugu fiican waxay tahay horta bashaashad inaad ku soo dhaweeydo waji farxad oodan waxa weeyaan markii martigu hadlaba aadan nixin la baqiilku waa qaracma markii martigu hadlo khaasatan miiga oo kale dadka yaqaan martiga way dareemayaan waqtiga uu socdo yaqaanin marka martiga waa inaad ku faraxdo markaad aragto وجه فرحان لكو فريس هادين waxbaan ku keenay iyo xaad rabta hore u dhaqaaqadan hore u dhaqaaq af banaan uu sheekayn waxa aad heli karto wax ugu fiican kan waxa iskalif waajib ma nabiga sallallahu alayhi wasallam uu nahiyay in la iskalifo oo la isku kalifo waxan lahayn Suleymaan wuxuu yiri nabigu sallallahu alayhi wasallam naga reebay an natakallafa lidayfi ma laysa indana waxaan hayn inaan isku kalifno taas hadda waxa inaad dhibsato iimaan martiga laakiin waxa aad haydo waxa uu fiican keen وخاصة هبينك iyo maalinka hore sida ugu fiican uu soo samay hana kala soo daahino la soo degdeg una khidmi oo adu agta ka soo dhig intaas daad sameeyay sida nabi ibraahim marti qaaday malaa'ikta sida ugu fiican waji bashaashad le ku qaabi isla markiiba u dhaqaaqo u istaag waxa hayda waxa ugu fiican keen sida ugu fiican uu soo samay agtana ka soo dhig oo u soo dhaweey خلاص martiqaad wanaagsan bal ahadiitha gabal waxa ku sugnaaday hadii martiqaadkii ay diidaan dadkii lagu soo hoyday in laga qaadan karo in laga qaadan karo oo hadiithka bukhari muslim wari min hadiith uqbah ibn amir wuxuu rasuulka waxaan niri rasuulka allah waadna dirta shaqad noo dirta kama ahan dad caadi iska socda waa dad nabigu diro shaqo u diray sallallahu alayhi wasallam oo masaalixda muslimiinta u socda shaqad noo dirta فننزل بقوم لا يقرنوننا فننزل بقوم لا يقروننا وحن كن سو دغنا دد ان مرتقادين فما ترى ما حد ركت رسولك الله صلى الله عليه وسلم رسولك يقول ان نزلتم بقوم هذا ددك سو دغتان فامروا لكم بما ينبغي للضيف اي انين امران وحا مرتقه كو هبون فاقبلوا كاقبلوا فإن لم يفعلوا هذا سمين فخذوا منهم كقات حق الضيف الذي ينبغي له انت مرتقوا لها كقات لكن أهل العلم قبل كود سيدا حميد ابن زنجويه ويري وحوي يري ددك على كلا قاده ددك ايا لا كلا قاده haduu yahay sidaas dadka nabigu diray oo kale masaalixda muslimiinta dad u socda martiqaadka haday sii diidaan waa ka qaadanaya haduu yahay qof iska socday oo aan idna waxa weyn meel uma dirsan asaga daniisa u safrayo hadii loo diido waa dacweyne
qaadigu taga wuxuu leeyahay ninkan waa iga seex qaadigana waa inuu ka qaada la waa waajib xaq waajib weey maahan xoolahaaga waajib alla ku saaray weey martiqaadkan dad badan moogtahay hanti aysan lahayn moodan in leeyihiin martiqaadka ma lihid adiga ha sida sakada miyaad leedahay markay kugu waajibto hanti masaakiin weey xoolahaaga ku dhex jirto masaakiina iska leedahay bari wakadalika tamana sidaas oo kale marka qaadigu qaadiga u taga oo ka soo qaada martiqaadka marka waa sida markii la dacweeyo isku cadaato marka sidaas loo kala qaadaa laakiin markasta waxa uu laazim in la ogaado marka la leeyahay ka qaata laftirkeeda fasaad islaamku ma amro baysan ka kale xoog rooraan isdilayaan islaamku isdila ma amro fasaad ma amro ee waa rag xooga xoog loo ka qaada kara iyagoon fasaad kala dhicin ee martiqaada la raadinayo hadii madax muslim ku qalalo de taas waa fasaad islaamkuna fasaad ma amro marka martiqaadkana waa fikrada kaleeto oo muhiimka ah rawaahu al-Bukhari wa Muslim ayaa xadiidka wariyeen